Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada mawduucina maanta haddii aad ku cusubtahay kanaalkan fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada waan rajeynayaa inaad asxaabtiina kalena sii gaadhsiisaan mawduucan haddii aad ka hesheen fadlan like ku sharaf adduunyadan aan ku noolnahay waxyaabaha kale ay ka siiyaa badan yihiin marka aan mawduuca kale aan diyaarinayo waxyaabo cajiib subxaanlayste ayaad arkaysaa balse maanta waxyaabihii hore oo dhan waa bikh waxa uu guursaday ayaa la yidhi meydka gabadh uu jeclaa guur ku wada ballameen meydka gabadha ayaa taash loo xidhay cajiib subxaan allah nin ku nool dalka shiinaha ayaa guursaday meydka gabadh u doonanayd oo ay guur ku ballameen waxa uuna guur ku dhacay intii ay socotay aaska gabadhu waxa uuna muujiyey jacayl uu qabay oo ay u geeriyootay kansarka naasaha kaga dhaca dumarka daawade caruuskan oo aada u murugaysan anigu wax ka murugaysiiyey garan maaye da-diisuna waa 55 jir ayaa rajeynaya in xafladda guurka ay ahayd xaqiijinta riyadii gabadhii u doonanayd ay ahayd mar uun inay sidan oo kale caruus wada noqdaan balse waxaan la joojin karin qadarka allah meydka gabadha uu saaxiibka la ahaa ee 12 sano ay soo wada sheekaysanayeen oo lagu magacaabay Young Love ayaa loo xidhay toob cad caruusada oo loogu talagalay waxaana lagu wareejiyey ubaxyo markii uu ku akhriyay fariinta wacadka uu ku galay guurkeeda sida ay ku soo warantay warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Shiinaha oo tabinaysa dhacdadan ama ka kale balse halka waxyaabihii yaab kale ay ka dhacay waxaa ka mid ahaa qiiro jaban lagu qiiro jabinayay qofkan ilaahayba ka haystay ee markaasi geeriyooday ruuskan Shiinaha u dhashay waxa uu yiri ugu dambeyntii ha ii warwarin xaaskaygii noloshaydu waxay noqon doontaa mid xanuun badan waxyaabaha cajiibka ee dadka aan diinta haysan ay sameeyaan ayay ka kow tahay balse taas oo kale annaguna allah ayaan ka magan galnay waxyaabo aan macquul ahayn way daawade waxyaabahan inta daawanayso ha rajayn hayna ku soo dhicin niyadaada waxyaabo noocan oo kale waana ku maadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusubtahay kanaalkan fadlan subscribe noo saar waana maadsan tahay fi amaanillah